عقاشة odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanka Faarax Samatar ee gobolka Togdheer oo shir jiraad ku qabtay magaalada Burco waxay si adag uga hadleen xaaladda ammaan ee deegaankaasi Faarax Samatar iyagoo barasabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salebaan Ramaax ku eedeeyay inuu deegaankaasi ka wado falal amniga liddi ku ah عقاشة waxgaradka iyo odayaasha oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa haddii aanu nahay عقاشة gudida daahir faarax iyo gaashaanbuurta halkan waxaanu ka hadlaynaa arrin ka dhacday balliga Faarax Samatar oo uu sameeyey gudoomiyaha gobolka Togdheer Ramaax oo ah isku dhufasho laba beelood oo dega agagaarka Ballihiile iyo balliga Faarax Samatar taas oo hore loo dhameeyay hawshooda waxa uu riday dagaal toos ah oo qaawan oo aanu gaad isugu soo gaban isagoo reerkiisii soo duuliyay oo ku soo duuliyay magaalada la Faarax Samatar mana aha wax ay wada degaan reeru tuulooyinka waxay deganayeen tuulooyin kale isagaana soo raray waana gaarigiisii ka meesha qodaya baraaga ka qodaya ka wadaana waa walaalkii lacagta isaga bixinayo dabada ka soo wada halka wixii ka dhacana isaga ka mas'uula laga bilaabo iyo saacada iminka magaalada la ilaa Faarax Samatar waanu in badan kala shaqay oo uu ogaa waanu go'aamo ka yeelanay oo uu aqoonsaday oo dawladdu uga horeysay intaas oo barasab uga horeysay haddana marba uu wafdi ku baxaya habeenimo oo isaga oo reer wada reerka isagu uu yahay habeenkii wada ayuu galaa aalad cidi iska leedahay oo degan tahay oo aan cidi ku helin ayuu leeyahay reer kale dushaan kaga dhufto sidii qarax uga dhici lahaa oo aanay wada yeelanba karin arrinkaa isaga ah wixii halkaa ka dhaca in badan baanu barasabka kala hadalnay waanu isu kala dhuldhiga markii hore wuxuu yidhi dee guddigiinna iyo maamulkiinna iyo hawshiinna iyo magaaladiinna wata haddana marba labada dhinac wuu ka qodayaa marna magaaladu odhanaya waan baabiinaya mar wuxuu odhanayaa wadadega halkan mashruuc buu ninka kan ku soo qaatay barasaabkii nabadgelyo xumo wax naga suuroobayana maaha wixii halkaa ka dhacana isagaa qaba waxaanu ku eedaananaa been abuurka uu guddidii nabadgelyada qoraal ayna wada sameyn uu dusha nagaga keenay qoraalkii waa la hayaa guddidii nabadgelyadu may wada saxiixin tuulo reer degan yahay oo meel dad iska leeyahay oo uu degan yahay ayuu intuu keenay reer uu yidhi guddida ha ka mid noqdeen oo haydinla yeesheen oo haydinla degeen waxaanu ka yeelano maaha dawlad baana ka yeel shicbiga dawladna ka yeelmayno caday wallaahi kama ogolin caday wax kala day caday kama ogolin haddii kumanaan ku dhimanayaan caday kama ogolin dawladdu waa inay arrinta wax ka qabataa si degdega wax looga qabta oo waxaan meesha tuban ee leeyahay waxbay farafareenayaan oo qodayaan waa in laga si degdega noo laga dulqaada iyaguna waxay oolaayeen oo ay degan yihiin meesha la yiraahdo Ballihiile tana Faarax Samatar baa la yiraahdaa 340 sanadood baa reerkaas deganaa isaga ayaa iskale reerkiiba ku dhiftay waraaqu qoray in badan maanu ka wada hadalay waa nin bareersan waa qabyaalaysti waxaanu leenahay dawladda dhexe iminka anagu nabadii faraha ku haynaa faraha ayaanu ku haynaa waxaanu leenahay inaan ku soo gaadho beelaha haddii allaba ku reey Soomaaliland deegaanka waa kala leeyihiin laakiin daaqay wadaagaan iyo wixii danahee kale ayay wadaagaan waxa weeye balliga Faarax Samatar tuulada Faarax Samatar waxay la xawl tahay ama la xeer tahay deegaamada kale ee Soomaaliland sida loo kala leeyahay ayaa tan reer gaar u leeyahay waa nabadgelyo xumo waa amaan darro waxa weeyaan amaan darradaas uu dabada ka riixayo barasaabka gobolka Togdheer Masar Rabaax barasaabka gobolka Togdheer Ramaax saddex balli ayuu yidhi hareeraheeda ka qoda saddexdeeda koone waxa wada walaalkii isaga waxaan kugu yidhi maalgelinta iyo hawshana wata maanta dib loo bilaabay haddii aan si degdeg loo soo gaarin oo wax looga qabanin waa mid ay ka dhacayso la isku manahayo hadhowtana cidii foolkeeda iyada xambaaranaysa waa Ramaaxi eedeyntaasi loo soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salebaan Ramaax ayaa mar TV-ga Ariel uu isku dayay wax ka weydiiyo nooma ay suura galin Maxamed Mataan Gabalaax Maxamed Mooto Ariel TV magaalada Burco.